iyadoo xiisada ka dhex caloosan Itoobiya iyo Eritrea cirka ay ku shareeran tahay ayaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed wuxuu carabka ku adkeeyay in dalkiisa uusan si ahaan doonin dal aan bad lahayn isagoo xusay in helitaanka Itoobiya badda cas ay tahay arrin lama huraan ah oo noloshooda ku xiran Abiy ayaa carabka ku adkeeyay in Addis Ababa aysan doonayn dagaal balse ay awood u leedahay in go'aan adag ay qaadato haddii lagu qasbo isagoo uga digay Eritrea inaysan ku sii jiidin dagaal military xilli xiisadu ay sii kordhayso una dhaxaysa labada dal ee dariska ah Abiy Ahmed wuxuu sidoo kale tilmaamay in dalkiisu uu diyaar u yahay in uu tago Casmara si uu bog cusub u furo xiriirka labada dal isagoo adkeeyay in nabadu ay tahay doorashada Itoobiya ay jeceshahay laakiin xuquuqda dalkiisa aysan marnaba ka tanaasuli doonin gaar ahaan marin badeed oo ay helaan isagoo arrintan sii faahfaahinaya ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa daboolka ka qaaday inuu codsaday dhexdhexaadin gaar ahaan Mareykanka iyo Midowga Yurub si loogu helo xal waara oo nabadeed in dalkiisa uu helo marin badeed isagoo aan dagaal gelin Abiy Ahmed ayaa bilooyinkii la soo dhaafay ku celcelinayay in dalkiisa uu leeyahay xuquuq uu ku yeesho dekad badeed halka Casmara ay ku eedeysay dowladda Itoobiya inay indhaha ku hayso dekada Casab ee Eritrea ma nihin kuwa dagaal doonaya niyadana kuma hayno dagaal aynu la galno Eritrea taa bedelkeedii waxaan aaminsanahay in arrintan si nabad ah lagu xallin karo ayuu yiri Abiy Ahmed oo su'aalaha ay weydiiyeen xildhibaanada baarlamaanka dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo xilka qabtay sanadkii 2018 ayaa sheegay in wadahadallo uu la yeeshay wakiilo ka socda Mareykanka Ruushka Shiinaha Midowga Afrika iyo Midowga Yurub isagoo ku nuuxnuuxsaday in codsiga Itoobiya ee marin badeedka uu yahay go'aan aan laga noqon karin hadalka ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa yimid iyadoo xiisad xoog leh ay ka dhex taagan tahay labada dal ee geeska Afrika dhaca taasi oo dhalisay cabsi ah in dagaal cusub uu ka dhex qarxo Itoobiya oo ay ku nool yihiin 130 milyan oo qof waa dalka labaad ee ugu dadka badan Afrika wuxuuna badla'aan ahaa tan iyo markii Eritrea madax bannaanideeda ay qaadatay 1993 Itoobiya iyo Eritrea waxay galeen dagaal dhiig badan oo ku daatay intii u dhaxaysay 1998 ilaa 2000 kaasi oo sababay dhimashada 10,000 oo qof sabab la xiriira muran dhanka xuduudda ah xiriirka labada dal ayaa soo hagaagay 2018 markii Abiy Ahmed xukunka la wareegay isagoo heshiis isla markiiba la saxiixday madaxweynaha Eritrea Asiyaas Afwerki oo xukumayay Eritrea tan iyo 1993 hase yeeshee xiisada ayaa dib u soo cusboonaatay sanadkii 2022 kadib dhamaadkii dagaalkii gobolka Tigreega kaas oo sababay dhimashada ugu yaraan 600 oo kun oo qof iyadoo ciidamada Eritrea ay garab siinayeen ciidamada Itoobiya ee la dagaalamayay falagada Tigreega ee gobolka waqooyi bishii Oktoobar Itoobiya ayaa ku eedeysay Eritrea in ay maalgelinayso kooxo hubaysan oo dagaal kula jira ciidamada federaalka gaar ahaan gobolka Amxaarada iyadoo lagu eedeeyay faragelin isku day khalqalgelin iyo isxulafaysi ku salaysan in Eritrea ay taageerayso kooxaha ka dagaalamaya gobolka Amxaarada eedeymahaasi Casmara waxay ku tilmaamtay sheeko been abuur ah